sidoo kale wuxuu ka mid yahay dadka afyeenka u ah oromadana ku haya magaalada Hargeysa bal oroma difama gafada oromada in dalka laga mustaafiriyo oo lagu bahdilo lagu jirdilo waxa ka dhow in qadaadweynta yamyamtii qadaadweynta Soomaaliland laga cilib turgabigoodba xeer maanta waxay gaareen in ay soo hanjabaan ama fariimo baraha bulshada ay noo soo mariyaan hadda idinku kuwa Hargeysa aad dhameysaan Itoobiya waa la wada joogaa 5 qof ama 6 qof hadda dishaana 10 qof inuu idinka dhimanayo garta xabada kaliya maanta waxay leedahay Itoobiya waa walaalaheen Itoobiya Soomaaliland waa dad la dhashay oo walaala si kastana Itoobiya iyo Soomaaliland ay u yihiin laba dal oo walaala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يا سود وهذا واحد هاي مستر كلمتاني هديتها مركا كوهر يسوى نصاب وقته واتكم مع سنتاي بغشود هذا كستمر كيرنا داتا هنا واتكم مع سنتاي لجوتان كاية سيدا الله ساعتان ايانتان برحب بالشدة قعدوها حكسو على يسادة لو الرافي لها ودنك لو ساري لها ورمض الدولان كوكوه masiirka ama mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed arintaas waxa dadka u badan codkooda meel fog u gaari karo oo ololaha wada waxa kamid ah ninkay dhahaan Adansan iyo ninkay dhahaan Jubba arintaas meel fiican ay mareysay jawigeeda u degnaa Adansan wuxuu sheegay haddii Soomaaliland ay go'aan qaadato in ay raafto go'aankaas inuusan socon doonin ilaa ay muddo 48 saacadood waa kan hadalkiisa استديا فرت ساعة دمادي سي سعوتو ترحيلك هاي أرماسي قب قبشداس استديا فرت ساعة قرا ولي وحبه ويديننا waxay noqotay Adansan sidoo sheegay xukuumadda Soomaaliland waray ka soo saartay waxayna sheegtay in aan laga yeeli doonin shacabka Soomaaliland in ay raafaan ama sharciga ay gacanta ku qaataan afyeenka booliiska oo hadlay arintaasna ka hadlay waa kan bariyaha dambe waxa muuqanaysa in dhalinyaro is urursatay ay beegsanayaan dad gaar ah Itoobiya iyo Soomaaliland waa laba dal oo walaalo ah oo jaar ah oo xiriir fiican ka dhaxeeyo wax colaadina aan ka dhaxayn waxaan uga digayaa dhalinyaradaasi in aanay sharciga gacantooda ku qaadan in aanay sharciga gacantooda ku fulin Itoobiya waxay sameysay dad af Soomaaliga si fiican u yaqaan u jawaabi kara dhalinyarada Soomaaliyeed ee kacdoonka ka wada baraha bulshada rabana in wadanka laga saaro Oromada gabadhan waxay ka mid tahay gabar Oromo ah waxayna ka xanaaqday raafitaankii laga raafay Hargeysa shacabkooda waxayna sheegtay in haddii 2 qof laga dilo ama 5 qof laga dilo oo Oromo iyagana ay dili doonaan ilaa iyo 10 qof in ka badan Hargeysana laga raafo meel kasta hana laga raafo meel kasta hana la geeyo laakiin Itoobiya waa joogtaa anagu Hargeysa waan deganay waan hadda idinku kuwa Hargeysa aad dhameysaan Itoobiya waa la wada joogaa 5 qof ama 6 qof hadda dishaana 10 qof inuu idinka dhimanayo garta xabada kaliya xeer maanta waxay gaareen in ay soo hanjabaan ama fariimo baraha bulshada ay noo soo mariyaan ninka wuxuu ka mid yahay nin Oromo wuxuuna ku dhaartay in uu xeebta Lido isku soo duubi doono biyaheedina uu si fiican u soo dabaali doono sidoo kale wuxuu sheegay in Soomaali aabaheed uu yahay ninkay dhahaan Abi أنا أورما ودنكيجن وياهي إثيوبيا قف صومالي إيمهن جبي كرو وحقيقو حجيسين عرقمو حيبت الليدو أوكي بلانتس واكو صوب حياة فيديو كحقو حاركي دونتي أنا حيبت الليدو جوغا بلسي محاني قشرد حيبت الليدو هدا فيديو اسكي صوبوغو أن كتغو أنيغو نبات قبو نمبر 2 waxaa qiri doontiin ina ay aabihiin qof walbo ii hanjabto waayo aniga balanta waa ka soo baxaa lambar 2 Abi Ahmed inuu yahay aabihiin Oromada markii ay maqashay gilgilka iyo raafitaanka loo geystay shacabkooda iyagana baraha bulshada ay fariimo soo mareen waxayna ku dhaarteen in wixii saacan ka bilaabo ay mudaharaad sameyn doonaan iyaga oo beegsan doono dhalinyarada ku nool gudaha Itoobiya oo ina la iska celiyo weeyaan Soomaalida ina diradaba laga saar weeyaan oo Soomaalida ina laga guuro weeyaan oo Itoobiya waxaan sheegnay in ay basaasiin waaweyn ay ku leedahay gudaha Soomaaliland ninka wuxuu ka mid yahay sidoo kale wuxuu ka mid yahay dadka afyeenka u ah Oromadana ku haya magaalada Hargeysa bal ninka wuxuu ku hadlay asa dhageysano oromada in dalka laga mustaafiriyo markii dawladda siyaad baray Hargeysa inta ka duushay diyaaradaha ugu rusheynayay xagee shacabkeeni maatidani maxasan digeen war xagaad ku dhalatay aabaha weydiyo hooyada ina keere idaftar la istubarka doonayeen dadka kala dilow ummata Oroma difama gafada oromada in dalka laga mustaafiriyo oo lagu bahdilo lagu jirdilo
waxaa ka dhow in qadaadweynta yamyamtii qadaadweynta Soomaaliland laga cirib tiro gabigoodba xeer waxay maraysaa in la adeegsado gabdhihii Soomaaliyeed ee burburnaha qaarkood iyagoo isku sheegay in ay dad wariyaal yihiin soona qaatay wax baraha bulshada la iskaga dacayday sida Telegram link iyo barnaamijka kale oo aan fiicin bal saqadamadan waxay sheegaysaa la dhageysta kani waxaa ku qoran oraah caan baxday oo ahayd Soomaaliya waa linki ka mid ah Telegramka qoraalkani waxa uu leeyahay Somaliland waa dal madax bannaan halka dawladda fashilantay ee Soomaaliyana ay tahay linki ama qayb ka mid ah Telegramka taasi waxay cadeynaysaa in Itoobiya iyo shacabka Itoobiyaba ay la dareen yihiin shacabka reer Somaliland si kastana Itoobiya iyo Somaliland ay u yihiin laba dal oo walaalo ah horaa loo yiri buurnaan iyo aqli la islaama helo maanta waxay soo qaadatay iyadoo waliba saxafiyad ama wariinimo sheeganayso in ay tiraahdo Soomaaliya waa qayb ka tirsan Telegram ma ahayn inaasiya ay dhahdo maanta waxay leedahay Itoobiya waa walaalaheen Itoobiya Somaliland waa dad la dhashay oo walaala berrina waxay rabtaa dadka Soomaaliyeed masiirkooda in mugdi halisa la geliyo arintan meel fog gaartay siyaasiyiin ka hadlay dad badan oo caaqil oo culimo leh oo ka hadashay waxayna sheegeen gebigood in la iska saaro Oromada sida loo saaro lahaan laga shaqeeyo qof kasto maanta soo dhaweysta Oromadana oo ka shilaan doono mustaqbalka dhibaatada ay geysato hadda waxaad u jeedaan baraha bulshada in ay ka bilaabeen dood iyo hadalhayn badan Oromadina ay beegsanayaan dadka Soomaaliyeed ee joogo Itoobiya arintaas oo noqon doonta midii ugu xumeed ee faraha ka sii baxdo madar wuxuu ka mid yahay dadka ugu caansan Somaliland dhalinyarada social media ku jirto wuxuuna sheegay in Somaliland ay aad u jaban tahay markii loo fiiriyo dhanka Itoobiya cabsi weyn ay ka qabto in la saaro Oromada daan iyo absalaan dhamaan aad baan wada salaamay warnimayow waxa jirta dawladeena iyo shacabkeenu waxaad moodaa inay dawladda Itoobiya ay xoog ugu jajaban yihiin haddii aad neeb tahay ama aad ku faraxsan tahay in la saaro Oromada duulaanka ku ah masiirka ummadda Soomaaliyeed fadlan video like saar sina share galay waxaan ahay Mr. Kilmatani waxaan leeyahay page Facebook iyo YouTube mar walba waxaan ku soo gudbiyaa arrimaha bulshada danta u ah waxyaabaha muhiimka ah in laga hadlo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.